قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة، من استعد للموت ولما بعد الموت، من عرف مقصد حياته. العاقل كل العاقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. qofka caaqilka qofka dhaqaalaha badanna maaha, qofka adduunyada urursada maaha. addunyaa daaru man laa daara lahu buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. adduunyadu waxay daar u tahay ninkaan aakhiro daar ku lahayn. wamaalu man laa maala lahu, dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhiro ku lahayn. lahaa yajmacu man laa caqla lahu, adduunyada waxaa ururiya buu nebigu yihi ninaan caqli lahayn. caaqilku waa kee? waa ninka garta wixii adduunya kii keenay, waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo. man akyasu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasuula allah. masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay, nin acraabi oo reer miya. markaasuu su-aasha nebiga u jeediyey, yaa rasuul allah, dadka ninkeebaa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi. umaba dheeraane wuxuu yidhi, akharuhum lilmowti dikraa wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum lakyaas dahabuu bisharafi addunya wa karaamati alaakhira. dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geeridaya aakhira xasuusanaya, maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira ziyaadsanaya. kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi, sharaftii adduunyadii karaamadii aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi. sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamadda adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay. dadka meeshay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan u kala caddahay baa yaqaana. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل. بنبي كويل أبو ذر، يا أبا ذر، يا أبا ذر بكيل الدون إذا جديد سو بدو يقول دار توي كل قية سعيدنا الزيادة سفر كودير يا هاي. حكود دجن ولا لك يا مسلم كو شو وقتي وحالك يا إلى هاي أوجي هاي. حكو قناعة في الدين لما أقوله، قناعة في الدنيا بالله أقول يا طاعدي عبادتي يا دينتي انت هيسته ولغا كو قنعن. اما ادويدي كسبغا يا ارزاقدا انت الهي كسيه كو قنع تاسا مستحب او جدي. وابا در ازهد امتي واعبدها بالنبي قولي وانك امديده ugu zaahidsan ugu cibaado badan. man arada an yandura ila Isa ibn Maryam falyandur ila Abi Dar buu nebigu yidhi. ninkii doonaya nebi Ciise inuu arko Aba Dar al-Ghifaari ha arka buu yidhi, zuhdigiisa iyo sidoo adduunyada uga zaahiday. kaasaa nebigu dardaaranka soo mariyuu leeyahay, abaadar ow doonida jadiidso, iimaanka jadiidso, qalbigaaga adduunyada kala dagaalam, qalbigaaga cadamada lacagta maxabada lacagta kala dagaalam. baddu way ku liqi haddii kale, shahawaad iyo qaflad baa adduunyada lagu sheeriyo way ku liqi haddii kale. wa akthar izaada fa ina safara tawiil. sahaydana ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi Abu Dar, oo safarku uu dheer yahay. sayidina Abaa Hurayra radia allahu canhu ayaa sankaraadkii ooyey. markaasaa lagu yidhi Abaa Hurayra maxaa loo ooyeysaa? saaxibu rasuulillaahi baa tahee. wuxuu yidhi abkii liqilati zaadi wa bucda safarii. sahaydaa wata yarideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yidhi. hada Abu Dar. cumar radia allahu canhu waa ninkii nebigu yidhi, low kaana bacdii nabiyan lakaana cumar. haddii aniga nebi dabada iman lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi. jannadaan galay buu nebigu yidhi, habeenkii micraashka qasri jannada ku yaalla ayaan arkay, gabadh xawraa ayaa igaga soo baxday buu rasuulku yidhi. markaasaan ku yidhi, liman hada alqasri, gurigan ayaa loo diyaariyey qasriga intan leeg. waxay tihi, nin carab ka dhashaa loo diyaariyey. anigaaba carabe ma cid kalaa? haa, nin qurayshaa loo diyaariyey, quraysh ka dhashay. anigaaba qurayshe ma cid kalaa? haa, nin ummadda nebi maxamedaa loo diyaariyey. anigaaba muxamede ma cid kalaa? haa bay tiri, cumar bnu khadaab baa qasrigan loo diyaariyey. hada cumar. walaakiin muxuu yidhi? masaajidkii nebiga khudbaduu ka jeediyey wuxuu yidhi, low naadaa min asamaa kullukum daakhiluuna aljannata ilaa rajulan waaxidan lakhiftu an akuuna huwa. haddii samada laga dhawaaqoo la yidhaha bini aadanka o dhan jannay galayaan, hal nin keliya naar ka galaaya, ninkaas inay ani tahan u malayn buu odhan jiray. qanaaca fi diin lama ogolo walaalkayga muslimkow. diinta intaad haysato ha ku qancin.
الدنيا انت ستكون قناع تاسع مستحبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قرون الدنيا الصومر تقرنق خير من نابي جوجين ساسين إلهي وقعب سونيين الدنيا لما وينين آخرة لما وينين أسبابتي أشياء لما وينين عملك الصالح إيمانك لما وينا مخلوق لما وينين إله خالق عمر كيسان لما وينا من لم يرضى بقضائي ولم يصبر البلاء ولم يشكر على نعمائي فليخرج من بين السماء وأرضي فليلتمس ربا سوائي بإلهي حديث القدس من لم يرضى بقضائي قضاها وحي أنكو حكم أدونك الرالي أنكو أهين نعمة إذن أن يقول شكريين بلايدا أنو كيننا كسبرين سمدي أرلد عنك هسميستها إيقتوا ملك الحقبتو ربك لن هسميستها إلهي إلى أين حكون مشغول شهواتك أرزاقت هم قريقوا واحد عنا يسوينون كبسيجين طاعة إلهي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي عن طاعة الله قرآنك ودعوت لما يسترن ويان ودعوت تامة إلهي ودعوت ينصينا وبتكاقوا وبتكانوا الشقايا وبتكانوا ورديا يحولها قاد حسابين يستطاعة إلهي كبسيجين النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها الدنيا هل كان جنة دي النار تبا لقد يارسانيا هل كان لقد يارسانيا هل كان جنة دي لقد يارسانيا نارتين هل كانوا لقد يارسانيا أعماشي جنة الجوجلي هل كان لقد قادنيا أعماشي نارت الجوجلي هل كانوا لقد قادنيا فهيلو من طاعة إلهي أفر عدو بقرآن كإلهي نوشيجي أفر تعدو ني والله والله تقلم نفتاد وعدو ويان إن النفس لأمارة بالسوء الديد وعدو جن ويان فلا تغرنكم الحياة الدنيا شيطانك وعدو جن ويان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هود وعدو جن ويان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هادع النفط هذا شيطان كان هادع الديد هادع طاعة إلهي إنك سجن الدنيا إلهي كوجع إلهينا أوصيا كوجع علينا أوصيا نبينا عليه الصلاة والسلام أيام مالين كسحدي حصير صلبوا كسحدي لقحدي بأمريكا فرها كقبتي عمر بعد دولي مدول للميي وكوكا عين نبي عليه الصلاة والسلام يا عمر بوكيد محاكا وهنا وحول يا رسول الله وحيقوا هنا يقول هذه رسولك إلهي أيا لقحدي فرها كقبنيسا مركز النبي كوير يا عمر ما دي قشي كسنتا يعني ما يكلا كامشي كسنيه وحي عنتملا هذه رسولك إلهي ومخلوق أو خير بدنا إني دقحدو فرها كقبتو كسر يا قيصر نسر الذهب أي كس إحدان جوابت دقيسو ولالك مسلم كو وحيري يا عمر أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا يا عمر وما أدرى لك وهين إني الراحة الدنيا يكون إحنا كالسناء قاتان إنكم الراحة آخرة نسك قادمكم مسلم مؤمنكم لدوني ما يصددتك كلاينو فكرو مال بعضو سعوتا تدنبها كل وينات تنك كتقل قمالي تدنبها دي كل وينات تنا دويد وي معانان هاد بقوفك انت العقد وزيادة الراحة ومزيادة وقو هاد بقوفك انت دويد وزيادة والولي والبهار كاكو زيادة هاد بقوفك انت إيمانك يدينتي قرب من الله ود وادنا راحة يا وزيادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قفك عمل وناكسن لي ما دا عمل وناكسن شنطا وقتي والجمع كنتك تاياك مدى عملك وناكسن من ذكر أو أنثى لبي يديك متكو دوني بهان نغضو إلى هيدي لبي يديك متكو دوني بهان نغضو وهو مؤمن حاله قفك مؤمن هو إيمان لي هي فلنحيينه حياة طيبة وكنا لينا نلن لقنا لا توبو وناكسن مفسرين توحيد هذا نلش وناكسن واصدح ويان قلبك وكود دقاء أرزاقته كوكو في اللاتا يددك وكو جعلادا صدح لا وحي لهي كوب بلن قاعد إنه كوبحن إيماني عمل صالح ديدتك لقى هلو إيماني عمل صالح marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso awaamirta ilaahay adkayso maaha adduunyada ka nuqsaamayse bal adduunyadu way ku ziyaadaysaa raaxa ku ziyaadaysaa amniga ku ziyaadaya man kanat ad-dunya
همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرغ شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له نك همي سكدق أبو الرسول كده الدوية قبو كفكرة آخرة رنت هاي نداقة كسارة إسكاي اللوبة لبدا إنه دين تود عيسى فقر الله سارة الرميه سنة بري قلبيت بار رب العزة كل الشيء الدوية ما بها لا أنت الله قدر مويانه ومن كانت الآخرة همه نك همي سكدق أبو الرسول كده آخرة جعله الله غناه في قلبك يا غنى الراحل وقبوحيا وجمع الله شمله الرميه سودنا إلهي بس كوكو سودويا واتت الدنيا وهي الراغمة الدوية وحي اتمادا يدو سندليسن وهو سعتي اتمادا برسول كويري هكسي جسن طاعد إلهي والالك مسلم كو دين تنوحو إلهي نوسيي سيادون كان يا آخران نقول لي بانو منافع الدين منفعات الدين تو آخرة كلية كمان بالعبانته الدوية دين تلقو درجيا الدوية دين تعز لقوها ليا الدون كنا دين الراحة لقوها ليا الدوية دين تأمن إن بتقلي لقوها ليا يا طالب الرزق في الدنيا بقوته قد كمان أنت ودبر طاعد إلى وحي قد في سواهم قريس اسمع يا طالب الرزق في الدنيا بقوته تدور فيها من بلد إلى بلد أتعبت نفسك ما لست تدركه وضاع عمك في همر وفي نكد لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا شربة ماء غير رزقك لم تجدي هداد هنقرق ملك أمرته اسكدا أرلبا انتو تشغل كويدو هذا السماء الشغل لقوقو الشيقات أجدون تشغل كبشبيو كو قرين مسو قادس أقصر عناءك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد تعبكاga yaree haysdaalin xoogaaga iyo caqligaaga iyo cimrigaaga adduunyada ha ku dayicine kala reebo oo aakhiradaadi ha seegin arsaaqadaadu hadday libaax foodiisa taallo ayadaa kuu imanayse laa tacjalanna fa ina risqa laysa bilcajali ha degdegin arsaaqada xoog iyo qafqaf laguma hele risqu maktuumin bilawxi maca alajali arsaaqadaadi iyo cimrigaagu waxay ku qoran yihin loox maxfuudka ma dhimanaysid ilaa arsaaqadaada aad dhamaysatid maahin لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكنه خلق الإنسان من عجل هذا الصبر لهين رزق يسقى نصود دون لها لكن بني آدم كان أسكت دق دقي مر والبا وحول بدق دق بكدونيا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها أفر شيء قف كستو مسلم عيال لقربا إنه إيمانك سيل على الصدو inuu iimaanka jadiidiyo inuu iimaanka ziyaadsado iyo inuu iimaanka caalamka o dhan dadka ugu yeedho iimaanka diintaada ilaalso diintaada mar walba cusboonaysiiso diintaada baro diintan caalamka o dhan baa ilaahay ugu talagale risaalada caalamka siday u gaari lahayn adiga laga rabaa diinta ilaalso kuna qanac diinta قنع سيدنا عمر رضي الله عنه أي أن يهودي وصاحب أيهين وريبني قريدون مدينة كصامري كلمات دينتي النبي موسى كمذا أيوك الصوقري وحو صوق لمساجد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن ثابت النبي وضفر ديبه ويمدي ألا عرضها عليك يا رسول الله يا رسول الله مكوبا دقا نريبني قريدون صاحبا هايبا كلمات توراة كصوقري فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام مذهب النبي قاس بدلي بلو فرسو مذهب كي باس بدلي مذهب كي رسولك
عبد الله بايد يا عمر ثكلتك أمك وإذا قبلنت نبي وجهي ميان العرض كدري من عمر نحي ورغدي بوطوري وحول رضينا بالله ربا إلهي ربي نمدي سر لما كنا قني وبالإسلام دينا دين الإسلام كنا وانكو قنعني ورالبا كنا هاي دقنا هان رالبا نقولنا عقيدة علمي عبادة با وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا نبي محمد رسالة دي سي نبي نمدي سنة وانكو قنعني بل رالبا كنا هاي فسر نبي قو فرحي منبر كيبو فولي وحويري نبي عليه الصلاة والسلام اسمع يا أخي دقيسو دادان دوحبا هين والله اسكو اكيسيو دادكينو اسكو اكيسيان اسكدايه انظر هذا النبي وقال عليه الصلاة والسلام لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم بولي هذه ما أنت النبي موسى وندح إيمان لها أنا وندح تاغن وهذه السجر راعي لهيدين واضح الله دين برسولكم بولي أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين نصيب أياديتهم بولو مده آكه لي نصيب أيان إني هاي بولي النبي يدي آتكه هشام برسولكم بولي هذه النبي موسى ما أنت وإيمان لها وشريعة دي سي التوراة لا إيمان لها ودانيga iga tagi lahaydeen oo isaga raaci lahaydeen waad halowdeen buu rasuulku yiri antum hadhi min al-umam ummadii ummadaha ugu khayr badnayd ummadda abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa jannadana galitaanka ugu horeysa ummadda jannada inta badan dagaysa maadaama oo tihiin nasiib ayaa inagu helay buu nabigu nasiibkayga ay kii siiyay maadaama aniguna ahay nabiyada ugu dambeeyay imaamkii anbiyada maadaama nahay nasiib ayaa igu hesheen buu rasuulku alayhi salaatu wasalaam ee shariicadayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qanacay buu rasuulku alayhi salaatu wasalaam wax lagu badilan karaa ma jiro dariiqadiisa ummadiisii baa ilaahay naga dhigay ummadana ummadaha ugu khayr badan ana wuxuu nabigu yiri hurrimatil jannatu ala al anbiya hatta adkhulaha jannada nabiyada gali maayana waa laga xarimay ilaa anu aan ka gala maahine wa hurrimatil jannatu ala al umam hatta tadkhula ummati ummaduhuna jannada gali maayaan ilaa ummadaydu ay gasho maahine qabuuraha ayuu nabigu ziyaartay baqiic markaasuu u duceeyey waditu low annii ra'aytu ikhwaanii waxaan jeclaaday buulan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa asxaabtu waxay ku yidhaahdeen awalasnaa ikhwaanaka miyaan anaku walaalaha ahayn laa antum asxaabii ininku asxaabtay baa tihiine walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ee rumayn doona iyo kuwa aniga arag buu rasuulku yidhi sideed u garan doontaa saxaabadu waxay yidhahdeen dadkaas ma abad arakin adigu iyakuna kumay arag sideed u garan doontaa qiyaamaha halkay wajiga dhulka dhigayeen ee weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka ugu iman doonaan buu rasuulku yidhi 120 saf ayaa jannada galaysa buu nabigu yidhi dadka ahlu jannuhu waa 120 saf 8 saf baa ummadayda buu rasuulku yidhi atardawna an takunu ruba ahli aljanna qulna bala abdullah ibn mas'ud baa yidhi nabiga maalina uu riyo wuxuu nagu yidhi raalima ku tihiin ummadaha marka loo qaybiyo 4 qaybood dadka jannada galaya afar marka loo qaybiyo qaybna noqotaan raalima ku tihiin asxaabtu waxay yiraahdeen ha atardawna an takunu thuluth ahli aljanna ahlu janna marka saddex loo qaybiyo qaybna noqotaan ma ku tihiin raali baan hay yiraahdeen markaasuu nabigu yiri walladhi nafsu muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna waxaan rajaynayaa ku rajawaynahay kay abuuray baan ku dhaartay jannada inaad kala badh in ku dagaysaa baan ku rajawaynahay buu rasuulku yiri ilaahay ummadiisii buu naga dhigay ilaahay uu ina karaameeyay wuxuu nagu karaameeyay waa maxay ummadihii hore shay kaliya un baa laga rabay kaliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan ama ummadan laba shay baa laga rabaa laba shay ilaahay inaad ka yaabto waa laga rabaa ilaahay inaad caabudo waa laga rabaa aakhiradan inaad u shaqaysato waa laga rabaa khalqiga adduunyada kugu nool ee bashariyada inaad arinta ugu yeedhana waa laga rabaa مقر النبي وعدي ألا لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم مرب النبي عمري سحجي مركلية مركينا وحيري أنا النبي قدم بي مجرو وماذا اللي قدم بي سانا مجرتي ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة كينا ما انت لجوغي مغليو كينا ما قارسيب رسولك عليه الصلاة والسلام بلغوا عني أدوا عني رحمكم الله الله ينين حارسي أما أنا ذا قادوا عالم كي قارسية اللهم انصر من نصر دين محمد إله ونكي الدين تيدا أقرقار برسولك ودي نظر الله امرأ سمع مقالتي مالك وجيدو أي مدوباني بنك قيامة وجيكي سألها نوريو نك هل آيات أما هل حديث يقام مغلي سدو يقام مغلي ومدو قارسيه برسولك عليه الصلاة والسلام ومدن ومد الأحي دورتي شرفتها يا كرامتها ومدن وحي كويالتي وشقدي نبينا عليه الصلاة والسلام
shaqadaas markay caalamka shaqada laga tagayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaan dalkeena ku dhacday wax kale ma aha waa tarku dacwa dacwada markii laga tagay dhibaata timiday إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم مركز حولها حول دقتي سكر حول دقتي أدو جيستان هي بيرها قودتان تجارة أدو كعدان شغدي دينتي دلالكي هلقي دينتي أتكتكتان إلى الدل من هوين يا دلي نقصار ما يدلغا نقصي بمايو إلا دينتي نادو نقطان ما هنا إلى دينكم بل إلى دينكم دينتو وحي باقي كن نغنسا صلاة ماها صونك ماها حشك ماها دينتو وحي باقي كن نغنسا في كل زمان وإن لها جهد الدعوة مر لي مركي دين دروس دعدبا إلهي وحو سو صار علماء ربانيين مر لباد سو عصبونيسي توحيدك إيمانك يا أخلاق الإسلام كلها ninka muadinka markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shaydaanku qofka uu ka baxaa 16 mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya markuu muadinku aadaanka dhameeyana uu soo laamaa qofka ayuu soo galaa iqaamada marka lagu dhiftana shaydaanku uu baxsadaa markay iqaamadu dhamaatana qofku soo galaa salaadiisii iyo qofkii buu kala dhexmaraa wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba salaadu waa farad eedaanku waa sunne shaydaanku muxuu salaada uga baxsan lahayahay oo sunnaha uga baxsanaya laana aadaanku waa dacwad salaaduna waa cibaado weeyaan ifham almasala walaalkayga muslimka u faham takaliyad ku badbaadayso ee ku nabad galaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan umar mamara buu nabigu yiri tog shaydaanna toga kulu ka sii wacda liana umar saaxibul haq buha saaxibul haq shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaade shaydaanku waxa uu ka cabsoonaya waa aadaanka allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma lana aadaanku waa dacwad dhamaystiran weeyaan sida darteed haddaan doonayna inaan badbaadno falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'ani as-su' dacwada maxaa kale lagu helayaa fasaadka dhacaya uquubada imanaysa ninka daaciga ee diinta ka shaqeeya way u badbaadaya imaam bukhari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa yiri qariyad baa ilaahay u soo diray malag soo halaag baa laga yiri qariyada soo halaag malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican ilaaqa u leh markaasuu yaa rabbi yiri qariyadan aad igu tiri soo halaag adoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii ilaahay wuxuu yiri fabda bihi cadaabka xaqiisa ka bilaab lam yata'ammar wajhu sa'atan fiya dadka aniga yaasinaya geyrkii caabudaya ee macsiyada dhexda baalanaya hal mar kaliya wajigiisu kama doorsoomo kama murugoone uquubadii cadaabka xaqiisa ka bilaab baa ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن لكل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق التمرة، ومن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلهي تبارك وتعالى waa muncim, isagaa inoo nicmeeyey. nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo, lamana soo koobi karaayo. hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan: nicmad yar iyo nicmad weyn. nicmadda yar bini aadanka oo dhan bay maaragtaanay ka dhaxaysaa. nicmadda weynina dad gaara ayaa khaas u tahay. nicmadda yar muslimkuna uu haysan karaa, kaan muslimka ahayna uu haysan karaa. waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuu ina siiyey nicmatul iijaad. ilaahay isagaa ina jirsiiyey. maan joogi jirin adduunyadan, ilaahay isagaa ina jirsiiyey. hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura. zaman
ayaa waqti ayaa caalamkan soo maray oo bini aadankan wax la sheegaba uusan ahayn. mid kastoo halkaa fadhiya haddii da'diisa la weydiiyo uu sheegi 30 jir 40 jir 50 jir haluma jar intaa doontaba sheego. intaa ka hor halkeed joogaysa lasta bishay horay waxba umaad ahaanayn imikana waxba ma tihid ee ilaahay unbaa ku jirsiiyey iraadadiisa iyo amarka ilaahayna waad ku socotaa. ilaahay bayna keenay adduunyadan oo ina jirsiiyey wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay. innii jaacilun fi lardi khaliifa markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey malaa'igtii buu u bishaareeyo ku yidhi waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa. khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay? arlada ku awaamirtayda ku fuliya, arlada ku aniga wakiiliga noqda oo mashayga iyo waxaan doonaya yeela oo aniga i garto aniga i adeeca oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuurayaa baa ilaahay yidhi. malaa'igtu waxay yidhahdeen ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya? haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne. ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi innii aclamu maa laa taclamuun, waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi. marka bashar buu ilaahay naga dhigay. walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi, bani aadanka waan karaamaynay. waxamalnaahum fi lbari waalbaxri, bariga iyo baddaba waan xambaarsiinay. warasaqnaahum min aldayibaat, arsaaqada ta ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay. wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila, khalqi fara badan oo sameeyena insaankan aan ka karaameeyay baa ilaahay yidhi. marka nicmatu linsaaniya waa nicmad weeyaan, laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma bal ka kale aan muslimka ahaynba nicmadda uu la wadaagaa. waa bashar, ka majuusiga cadaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmaddaas waa ay u dhaxaysaayo dadkao dhan waa bani aadam weeyaan. nicmadda yar waxaa kaloo ka mid a baa la yidhi arsaaqaddu waa nicmad weeyaan. arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye bal kuwa kalena arsaaqadda uu siiyaa. cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika. addoonkaygiiyo baa ilaahay yidhi adigana waajibaad iyo awaamir iyo axkaam baan ku saaray, aniguna arsaaqadaadii baan ballan qaaday inaan ku siinaayo. haddiid faraa'id iyo waajibaadkii aan ku saaray aad ka tagtana anu arsaaqada kaa goosan maayo baa ilaahay yidhi. arsaaqadu waa nicmad weeyaan, laakiin waa nicmad caama, dadkao dhan bay ka dhexaysaa. nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadkuu aada u jeclaa, keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine. nin martiya ayaa u yimiday, markaasuu neef u qalay, cuntadiibuu u dhigay. markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay. khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa, marka khashabkii baa ka soo dhacay. ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday, wuxuu yidhi soco buu yidhi kuma siinaya cuntadayde liannaka hayrullahi baad caabuddaa. uu ka socday ninkii, jibriil baa u yimid calayhi salaam, yaa ibraahim ilaahay uu kusoo salaamaya, wuxuuna kaa yidhi addoonkaa maxaad u eridood cuntada u siin weyday? markaasuu yidhi yaa rabbi, ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib u ahaa. uffin lakum walimaa tacbuduuna buu yidhi, ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan nigiri buu yidhi. wuxuu yidhi ninkaasi ilaahay kheyrkii buu caabudaya hoosta ku haystay. yaa jibriil, ilaahay baa yaa jibriil ku dhe khaliilkayga, ma maalin keliyuu ku yimidaad cunto siini weydee 70 sanuu sanabkaa uu samaystay caabudaa oo weliba ku arsaaqaa baa ilaahay yidhi. rasaaq waa ilaahay, arsaaqadu waa nicmad weeyaan. nicmadaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay. bashar caqligu waa nicmad weeyaan, caqliga dadka kaleba way kula wadaagaan. maqalku waa nicmad weeyaan, nicmadda maqalka dadkao dhan baa kula wadaaga. araggu waa nicmad weeyaan. akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum alsamca walabsaara walaf'ida lacalakum tashkuruun qaliilan maa tashkuruun. hooyooyinkiin ayuu naga soo saaray uurkooga ilaahay ininkoo waxba garanayn, markaasuu maqal inii yeelay, arag buu ini siiyey, qalbi buu ina siiyey, bashar buu inaga dhigay. nicmadaasina waa nicmad cumuumiya, nicmadaas dadkao dhan bay ka dhaxaysaa. mancim waa ilaahay. wamaa asbaxa minkum min nicmatin fa min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah. waxalli waxaa nicmadaad haysataan ee gabalku iniila dhacayo waaguna iniigu baryaayo ilaahay baa ini siiyey. koonka ilaahay baa inii sakhiray,
cadceedda ilaahay baa soo saaraya amarka ilaahay baa ku soo baxaysa amarka ilaahay baa ku dhacaysa dhulka aad ku socotay ilaahay baa kuu ballaadhiyey wasamaa'a banaynaaha biaydin wa innaa lamuusicuun waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakkaruun fafiruu ila allah samada ilaahay baa sameeyey oo ilaahay gacantiisuu samada ku sameeyey gacantiisa dhulka ilaahay baa farishay oo ballaadhiyey shay kastana laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisaad u antowdaan dharaar iyo habeen dayax iyo cadcaad kulayl iyo qabow abaar iyo barwaaqo nabadgelyo iyo cabsi nolol iyo geeri xanuun iyo caafimaad lab iyo dhidig faqiir iyo qani xanuun iyo caafimaad faqri iyo khina cizo iyo dilla shay walba laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisaad u antowdaan ee fafiruu ila allah xagga eebbahina u yaaca xagga makhluuqa ha u yaacina hayrullahi ka yaaca oo ilaahay xaggiisa u yaaca man khaafa shay-an haraba minhu waman khaafa allaha haraba ilayhi ninka shay ka cabsada shayga uu ka baxsadaa uu ka ordaa ninka ilaahay ka cabsadana ilaahay xaggiisa u ordaa haddii libaax hadda aad ka cabsato waad ka baxsan haddii ilaahay aad ka cabsato xaggeed u baxsan xaggiisa baad u baxsan meel kaloo loo baxsanaya ma jirto meel kaloo la isku dhiibaya ma jirto xaggiisa isku dhiib taskhiir ilaahay insaankan isagaa koonka u sakhiray sakhara lakum maa fi lardi jamiican barigiibuu kuu sakhiray buurihiibuu kuu sakhiray baddiibuu kuu sakhiray hawadiibuu kuu sakhiray kaa'inaadka o dhan buu adiga kuu sakhiray xoolihiibuu kuu sakhiray wa ina lakum fi lancaami lacibrah nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farthin wadamin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin baa ilaahay yidhi wa ina lakum fi lancaam nicmowlaydaad haysataana cibra inigu sugan baa ilaahay yidhi nusqiikum waa niga waraabinaa mima fii butuunihi shayga caloosheeda ay ku haysato caanahaason kasoo dhex saarna baa ilaahay yidhi dhiigiyo uus inta udhexaysaa kasoo saarnaa baa la yidhi caano cad taskhiir xoolihii baa lagu sakhiray cadcaaddii baa lagu sakhiray habeenkaa lagu sakhiray dharaartaa lagu sakhiray biyahaa lagu sakhiray hawadaa lagu sakhiray arsaaqadii baa lagu sakhiray malaa'ig baa ka shaqaynaysa arsaaqadaada un wax kalaba ka shaqaynayn afarta malag ee qur-aanku sheegay jibriil calayhi salaam iyo israafiil calayhi salaam iyo mika'iil calayhi salaam iyo malakul mowt afartaasiba bini aadamka unba u khidmaynayaan labana ruuxday ku shaqo leeyihiin labana jasadkay ku shaqo leeyihiin laba jasadkay ku shaqo leeyihiin jibriil calayhi salaam wuxuu keenay waxyigii ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay mika'iil calayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqo leeyahay israafiil calayhi salaam wuxuu ku shaqo leeyahay insaankan inay ruuxdu in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo noolay haddana malakul mowtna wuxuu ku shaqo leeyahay qabd al arwaax inuu bini aadamka ruuxda ka qabto bal insaanka sida ilahay u karaameeya u fiirso khalaqanaa ilaahay isagayna abuuray isagayna jirsiiyey isagaa ilaahay inoo nicmeeyey yaa ayuha alinsaan waa daaci weliba ilaahay uu ku yeedhayaa kaama hadhin welibana innii waalinsu waaljinnu fii naba'in cadiimin akhluqu wayacbudu hayrii arzuqu wayushkaru siwaa'ii baa ilahay yidhi anigii addoonkayga war baana dhex maray baa ilahay yidhi war weyn baa naga dhex dhacay akhluqu aniga abuuray baa ilaahay yidhi wayacbudu hayrii heyrkayna uu caabudayaa anigaa abuuray heyrkayna uu caabudayaa heyrkayna uu rajaynaya heyrkayna uu tala saaranaya heyrkayna uu isku hadlaynaya heyrkayna uu ictimaadaya arzuqu wayushkaru siwaa'ii aniga ayaa arsaaqa baa ilahay yidhi heyrkayna waa ku mahadinaya arsaaqada ayaa bixiya allah baa bixiya khayrii ilaa cibaadi naazil wa sharuhum ilaya saacid baa ilahay yidhi khayrkayga maalin walba uu soo degaya addoommahayga sharkoogina anigu isoo fuulayaa baa ilahay yidhi maalin walba waa taas koonkao dhan lagu sakhiray hawadii biyihii dabayshii cadcaaddii dharaartii habeenkii arsaaqadii biyihii waa lagu sakhiray acmaasha bini aadamka ka soo fulaysay ilahay xaggiisa loo qaadayana waa acmaal ilahay ka cadhaysiinaysa intaad ilaahay caasinaysa iyo intaad ilaahay adeecaysa iyo maa badan bal adigu is xisaabi khayrii ilaa cibaadi naazil wa sharuhum ilaya saacid khayrkaygii wuu u degayaa maalin walba sharkooguna anuu isoo fuulaa baa ilahay yidhi tucradu alacmaalu yowma alithnaini waalkhamiis buu nebigu yidhi maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha addoommaha jirkooga ka soo baxda ayaa ilaahay loo bandhigaa buu rasuulku yidhi markay addoommadu
ay ilaahay caasiyaan ilaahay jalla wacala u acroonaya ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilaahay welibana waa isjeclaysiinayaa anigoo u baahnayn oo welibana ka kaaftoon baa ilaahay leeyahay waanu nicmaynaynaa dhinacii walba hareerahan nicmadii ka dhignay buu ilaahay yidhi umana baahnayn haddana bini aadanka anigoo u baahnayn oo waxbana ay ii qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxay ii qabanayaan aysan jirin hadday ii wada caabudaan waxbay ima ziyaadinayaan hadday wada caasiyaan waxbay igama naaqusayaan yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulki shay-an baa ilahay yidhi xadiis alqudsi addoommahaygiiyow kiinii hore kiina dambe jin iyo insigiin haddaad noqotaan sida kiinayniigu alla kayaa badan waxba aniga ima ziyaadinaysaan baa ilaahay leeyahay culamada qaar waxay ku fasiraan waa nabi maxamed sal alla alay wasalam sida nebi maxamed ilaahay uu uga yaabay haddaad iga wada yaabtaan baa ilaahay leeyahay waxba aniga ima ziyaadinaysaan low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulki shay-a haddii sida ibliis ii caasiyey ibliis baa khalqiga ugu qalbi adage ibliis siduu amarkayga u diiduu u jabiyey isagoo quwaddayda garanaya haddaad amarkayga u wada diidaan ood caasadaan waxba ima ziyaadinaysaan baa ilaahay yidhi ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilahay yidhi say ii jeclaadaan bas anigoo haddana ka kaaftoomo u baahnayn bini aadanka wayatabaqaduuna ilaya bilmacaasi wa hum axwaju shayun ilaya macsiyad bay isku kay nacsiinayaan iyakoo wax walba aniga iga baahi badan baahida aniga ii qabaan iyo baahida biyaha baahida raxmadayda u qabaan baa ka weyn baahida arsaaqada u qabaan iyo yani baahida raxmadayda u qabaan baahida raxmadaydaa ka weyn iyakoo wax walba iga baahi badan ayay haddana macsiyaddii isku kay nacsiinayaan baa ilahay yidhi man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin ninka ii soo jeestay ii toobadkeena ee dembiga intuu galo ka soo noqday ii soo noqday baa ilaahay yidhi meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena ii soo dhowaada ina allaha yabsudu yadahu billayl liyatuuba musii'u nahaar wa yabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musii'u leyl ilaahay gacmihiisuu fidiyaa habeenkii si kuwa maalinkii dembiga ku jira uga toobad aqbalo maalinkiina ilaahay gacmihiisuu fidiyaa si kuwa habeenkii gafka ku jira ilahay uga toobad aqbalo man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin kuwa ii toobadkeena ii soo noqda meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena iisoo laama iisoo noqda faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii kooga iyaka ka mida ee xagga macsiyadda ku talax taga ee kayrkay caabuda ee shahawaadkiisa iyo hawadiisa raaca meel yaroo dhow baan uga soo baxnaayo waxaan ku nidhahnaa ayna tadhabu halkee tegaysaa ma rabbi anigaan ahayn baad leedahay ina badsha rabbika la shadiid ina rabbaka la bilmirsaad ma dheero kama dheero qariibun mujiib jabaabirada iyo fasaqada iyo dalamada iyo kafarada ilaahay uu ka argoostaa uu argoosanayaa maalinka qiyaamaha markay dadku soo baxaan buu rasuulku yidhi xagga dhawaaq baa ka imanaya xagga ilaahay markaasaa la odhanayaa ilaahay wuxuu odhanayaa cibaadii addoommahaygiyow min maalinkaan ini abuuray ilaad adduunyada ka imanayseen waxaad ku hadlaysaan oo dhanna waan maqlaayey waxaad samaynaysaan oo dhanna waan u jeeday waa nii aamusnaa maanta waa maalintaydii iyo aamusa waan argoosanayaa baa ilahay odhanayaa ayna aladiina akaluu risqii wa cabaduu hayrii markaasuu ilaahay odhanayaa mee kuwii arsaaqadayda cunaya heyrkayna caabudayay kuwii dollarka caabudaya dollarka salaadu ku dhaafaysa mee ilaa cibaadadu sanab keliya ma ahayne may haddaad qabiilkaaga aad islaamnimada iyo qabiilkaaga agtaada ku weynaado cabdulqabiil baa tahay cabdullahi ma tihid tacisa cabdu dinaari wadirham buu nebigu yidhi addoonka dinaarka iyo dirhamka caabudayaa khasaaro hoogay buu rasuulku yidhi shahawaadkaaga haddaad caabuddo cabdu shahawaad baa tahay ka qabiilkiisa u ficiltamaya islaamnimadii daaqadda ka saaray ee qabiil ku bedishay kaasina waa cabdulqabiila weeyaan man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu rasuulku yidhi ninka camalkiisu dib u dhiga maalinka qiyaamaha nasabku ka dhashay hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi ha u ficiltami reetolka waxba kuu tari maayaan ifkanay wax kuu tarayn aakhira waxba kuu tarayaan ifkanay naafici weyda qabyaaladii oo ummaddeeni iyo dalkeennii baabiise ma aakhiray wax kuu tari markaas xamiyadda iyo jaahilinimadaan iska saarno
man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninka camalkiisu dib u dhigu la hadho nasabkiisa hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam. nabiga nin baa u yimid oo yidhi ninka xamiyad u dagaalamaya iyo ninka u dagaalamaya buu yidhi shujaacad raganimo iyo geesinimo iyo ninka qabyaalad u dagaalamaya iyo maa fii sabiili illaahi ah. jawaamiculxikam baa la siiyey rasuulka xikmad buu ku jawaabo wuxuu yidhi ninka u dagaalama iclaa kalimatillah kaun baa la dartiya buu rasuulku yidhi kuwa kale waa dabayl waa dambas ay dabayl qaaday weeyaan waxoogu ma jiraan bay ka dhigan tahay. marka ilaahay innaka u baahan ayna aladiina cabaduu hayrii ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii buu ilahay odhanayaa aawee kuwii arsaaqadayda cunayay khayrkiina caabudayay ayna hum arsaaqadda ilaahay buu cunaayey nicmadda ilaahay buu dhex dabaalanayey ilaahayna adduunyada uu ku caasinayay bal reetolkii dartiid buu amarka ilaahay u jabinayay. aawey buu ilahay odhanaya waan argoosanaya maanta anigune marka qofka hadduu macsiyadda ku talax tago ma baxsanayo walaalayaal ma baxsanayo. adduunyada intuu nool yaha waa loo siita dheerayn laakiin ma dheeraanayo arrintiisu looma dheeraanayo. laa mucaqiba lixukmih alaysa allahu bicasiizin dintiqaam alaysa allahu biaxkami alxaakimiin alaysa allahu biaclama bima fi suduuri alcaalamiin. waa argoosan ilaahay. marka cibaadadu maaha sanab keliya loo sujuudo maaha waxa li wixii amarka ilaahay ku garamariyo dhan waad caabudday ka dhigan tahay. waxa li wixii ilaahay daacaddiisa ku halmaamiya waad caabudday. haddaad hawadaada raacdo hawadaada waad caabudday. afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah ilaah macnaheegu waa maxay luqada carabiga ilaah waxaa la yidhi waa shayga markay dhibaata kugu timaado qulubtaada u ilato xaggiisa hada hu yusama lilaah. man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii. halkee tegi buu odhanayaa meel kaleo tegaysa ma jirte. ilaahay waa muncim isagaa inoo nicmeeyey bashar buu inaga dhigay caqli buu ina siiyey cilmi buu ina siiyey kownkan iyo kaa'inaadku inoo sakhiray hadafku adduunyada inoo keenay in ilahay uu noo caddeeyey. nicmadda weyn ee gaarka ee dadka gaarka la siiyey waa nicmat liimaani walislaam. iimaanka islaamnimadu waa nicmad weyn nicmadaasaa ilaahay muslimiinta ku deeqay. nicmadaha kale ee ka soo hadaloo dhan waa nicmad wakti yar ku xadidan weeyaan laakiin nicmat liimaani walislaam ma xadidno. bal qofka adduunyada intuu nool yahay ilaahay amarkiisa qaata ee noloshiisa diin dhammaystiran laga helo ee diintu kashkiisa iyo laabtiisa ay ka muuqato ee iimaanka islaamnimada noloshiisa laga helo adduunyadana raaxa iyo ciz iyo sharaf aakhirana waxaa u dambaysa noloshii daa'imkii abadiga ahayd. adduunyaduna xaqiiqaba mahaba. wawasaa biha ibraahimu baniihi wayacquubu ya baniya ina allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. wasiyat lawaliina walaaakhiriin waa maxay? falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. nebi ibraahim calayhi salaam wiilashiisa wuxuu ku yidhi ubadkaygiyow ilaahay diintaasu inii doortee yayna ajashiyo geeridu nii iman ilaa ininkoo diinta ay xadhiggaa haysta maahine. hadday nii timaado ajashu ininkoo xadhiggaa haystana waad liibaanteen. hadday ajashu inii timaado ininkoo xadhiggaa haysanna khasaara waxaad ku dhacdeen weligii aan laga soo kamayn. khasaarada adduunyada waa laga kamaa laakiin khasaarada aakhira lagama kamo. dal bay dhibaata ka dhacday waa laga soo baxay dadka badankooga way ka baxeen. quruumo kaloo reer baadiyaha dalkiiba iska qabsaday dadkii wax yaqaaneen mutacalimiintiin way ka soo baxeen. meeshanna waa ka la iskaga yar cascasiya baawure la iska wada wato laakiin dhibaatada aakhira halkee looga qaxayaa ma jirto. ma jirto meel loo soconayo. haddii la yidhaha hebel qiyaamaha uu khasaaray khasaaro wuxuu ku dhacay uu weligii ka soo kacayn
قرآن كنا آد بوغا من مالك قيامها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يومئذ يود الذين كفروا يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا إلهي بالله فكيف لا تتقون ميانا عبسنين با إلهي ليه سينا عبسنين هذا خالقين إنكرتان ونعمة النسية إنكرتان ودهوديني شهواتكنا أذرعدان ميانا كعبسنين وقيران مالين المها يرمركو بنك قيام الله جوجيو تميس اسلامركي بعدان اسكو بدل دونان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ومالين وجيد قارنا يفتيم يان با إلهي قارنا وجيدو أي مضوبان يان يوم يفر المرء من أخيه ومالين تقفك هو يدي ولالكي أبطكي حاسكي أي كلا بحسن دونان ما أنت والله اسكو يا عيا دويدا والله اسكو يا عيا حتى الدباتة تمادو دتكو دباتة ما أنت واسكا كالميسان يان نوال بكيا الجوجة دتكيس يحبو الدريا لكن قيامة عندنا عيد وحضر ميسو هو يدا دي معاني دي كل شيء هدي اللي يرادو ميزانك أيا لقوها يا هل حسنا أيا كدمن السي هدي حسنا سجنة جلسا قفك السوح له مال أنت مي إلى نفط إذا جنة كوب سنة عد ما قنبوا ليه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بلك يوم لا يجزي والد عن ولده وما أنت والدك الميس وحق بكرين عنقنا أبي وحبوق بكرين قرآنكم ما أنت آد بوغا ورمي لكن أيام ما أنت كوان توبايا يا سورها يبا وركنا أيوب السامي يبا ما أنت يسامي حسن البصري أيا رابعة أيو كويري مات قرستي دا وعيت الإمام حسنو وعيت أفر آيادود وقرآنك أفر مسألة ضد قرآنك كتالا أيا أيا راحة دي همي قاعدة بيتري وحاولت القرآن وحاو نو شيغي إن مالك قيامها ددكو أي لباو كلا بحا إني ددكو لباو كلا قيب سميان قولنا كتابك مدقتي كقادن قولنا بدحدي كقادن لبدا قولنا كجرا إي عدين بيتري قرآن وحاو نو شيغي ميزانك إن عماش الله سار أيو قفك خيركي سعسلادنا الجنة إنو كواري أيو قفك شركي سعسلادنا النار إنو كوهين أيو لبدا مدان كجرا إي كلا عدين بيتري jidka siraadin la marayo quraanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labada qolada kamid ah ay cadeyn bay tiri fariiqun fil janna wa fariiqun fis sa'ir ba la yiri fariiqa ku jira ay cadeyn bay tiri oo raabi'a humum qofka meel uu cadahay meel kamadow dadka zamankan adduunyadana la weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada la weynaat آخرتي مركي وينينا نلاشي أدوية ودي بيرات راحتي أدوية وإفك وصباح حيث أدوية عش ما شئت فإنك ميت جبريل باوي مد النبي عليه الصلاة والسلام وكيري انت أدون تبنى لو كيد انت أمباتي قرشاك درس واعمل ما شئت فإنك مجزي به عمل كاد دونتنا لا يمو ولا قابل المرين دون قيامه سوقو وحبين من شئت فإنك مفارقه عدة دونتنا جعلوا أذيك عدة الجعشة أين موت كأنك لقين دوني عالم كنا كنا الله هاي مرك الله يقع عوالم تقدم بيسا عالم كنا بيدوح النغاني الدبع مرك الله يقع عوالم تقدم بيسا عالم الدنيا واللحن سنة تضبات السنة عالم البرزخ أيا كبدن عالم كادويدا dadkii zamankii nabi aadan dhintay ilaa joogadeena caalamkaas ay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa lagu janneeyay alqabru imma rawdatun min riyad aljanna wa imma hufratun min hufar an-nar bu nabigu yiri qabrigu laba mid buu noqonayaa ama berberaha jannada kamid uu qofka u noqonayaa ama godgodka naarta kamid uu noqonayaa sayyidina usman radiyallahu anhu marali markuu qubuuraha yimaada ilmada ka daadanaysay waxa la yidhi usmaanow janniya naar marka laga sheekay ma ooydide qabriga maxaa loo yeedaa markaad aragto wuxuu yiri qabrigu waxaan ka maqlay nabiga oo leh alayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horeeya hadduu qofku halka ku nabad galo nabadgelyo ayaa u dambaysa hadduu halka ku cadaabo lagu ku khasaarana khasaariyi weynaaba u gudbayaa buu yiri
زرارة ابن أبي أوفى مساجد بوكاها إمام تابعي بوها صلاة الصباح بجمعي تجيي ركعات دي ورمركو سورة فاتحة ودميي سورة المدثر بوكو حجسيي مركو مريو فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير مال انت سورة عن كل فنبا إلى هيد ومالين علس ويام مال انت عددك قال دانا كما فضضبا إلى هيدي آية دا مركو مريو ننكا إمامك تابعي جليلك ودعايو نفتي بك بحدي سيدنا عمر مساجد النبي صوغ الهبين إن يرو شاب واركي أو صلاة الليل تكنايا أو صوتك كرو قادايا مركز عمر استاغو ودغيستي يركيرا مركو فاتحة دي دميي وعقوع جسية والطور وكتاب مسطور في رق منشؤ دغيستي عمر مركو مري يركيرا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع هل كان مركو مري عمر أوصوحا أودعي قريقيسي باللقيي صدا مال موت بو حنون صنع حنون جيسان وحكويم دل موقين سيدنا عبد الرحمن بن عوف أي الله كان عنتو يسوق صوما مركاسو قرآن كيبو كالفري وقبل الفطور ويام قرآن كيبو كالفري مركاسو أخريي إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما طعام كأهل النار كآيات كور رميسا آيات أمركو تابتي سيدنا عبد الرحمن أويي إلا ما لنتا وافرك رواي سيدي بقصي عذابين كي قاجو نبي عليه الصلاة والسلام حلقات كيسي كمدا أيو النبي صلى الله عليه وسلم كو أخري آيات داس وحي جيبا كسو دقي إسلامر جيبا أصحابته وحي أقود بيي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كو إلهي النبي الرميو دولك إلهي النبي الرميو لفيه إني الكينا نار تكلب بحصد با إلهي قاجة كلب بحصد لمولا قاجة لغا سوياعي دبات سكنيا لغا سوياعي toban dhibaataa maanta faraha lala galo la laami kari leeyahay qu anfusakum wa ahlikum naara mufassiriintu waxay ku fasireen lafihiinana diinta barta ubadkiina yeelkiinana diinta baraba ilaahay yiri aayada diinta lagaga badbaadaya naarta aayada markay soo degtay waquduha an-nas wal hijara markuu nabigu aayada ku akhriyay in xabashiga nabiga hor fadhiyay majliskiisa lilma ayuu sii daadiyay uu ooyay oo hintiisii buu saysan kari waayay ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam يا محمد كان هوستاذ كوي يوايو مركاسول يا جبريل وادون ريح بشا واهل الخير ومؤمنة آيات داسان كو اخريو واتكسن كري وايبوري مركاسول يا جبريل يا محمد إلهي وحيري وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخافتي إلا أكثرت ضحكها في الجنة إلهي بالع شرفت إذا وين إذا عرشك يقصر أيام كدارتي الضومها يقا كمدا الدويدة دوشيدة مويو cabsadayda lama ooyo haddii la helase maalinka la qatay la qawayahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badiyaaba ilaahay yidhi 60 sano ayuu ku dhammaysanayaa taacadda ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa abaalgudkiisa wuxuu noqonayaa maalinka la qatay la qawayahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigayaa uu qoslaya allah inaga dhiga kuwaas fadadkii hore قلوبتو مركو افتينكو قال نور الإيمان هي نور العلم هي نور القرآن هي نور الهداية مركي أفرتها نور قلبي وقوه ساميي آخر دي باو عداتي قرآن كيف فهمين وحي جيبي فهمين عمر يا أبو بكر مركو النبي انتقال عليه الصلاة والسلام أيي دادين أبو بكر باكود عمرو أم أيمن النوغي هنبوقن سيدي النبي بقو زيارنا يهنو زيارنا النوغي مركاسو ويسا صور عين أم أيمن بيوي مادين مركاسو مر علي مركي أركت أبو بكر يا عمر ووضى السعودة أم أيمن ويل الميسي مركاسو عمر أبو بكر باكويري يا أم أيمن ميانا دوغي النبي إلهي أكتي إنه خير بدنتاي من النبي وأن نقول حسوسنا يسامعنوه ويانا وحيتري وأنوغهي نبي محمد الله أكتي إنه خير بدنتاي وأنوغهي وحنلوه يجري سكما وينه وركي السمد النوغي إيماني يبان نقول قايبتري عجيب بل أمد صدق القرآن كوحد ندو في رسو لقيسو وفهم قبل ولا شيء مسلمة داي زمن كدتكو سيدي القرآن كو وحد نايين هيك رقي دمر ما انت محل قول حريه محل قول حريه ما انت إيمانك وامحي تصديق تقديم بالنظر وتصديق بالخبر وحي نف الشوار كي صدم بينه وح صمد كيم دي ورنا الرماء هذا هو الإيمان قرآن كي حديث كالرماء وركو قنا قادو
wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeelay waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyada maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bilaa musqula ma dhici karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markii xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhaahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa adduunyada waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaana ee qorshahayga way ka baxday tanun baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas in la dabiibu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga la musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin الرزق بقدر المقدر باليدي أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين ويان واحد زيادة مهلس أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين عالم كان وعالم ير مرك الله يقع عالم كقبرك عالم كقبرك مرك الله يقع عالم كقيامها ويرانا يا عالم كقيامها مرك الله يقع عالم الجنة والنار عالم كسنة ويرانا يسنه لكن maxaa lagu badbaadayaa waxa lagu badbaadaya halkana laga qaadanaya waladadka ummuka ya ibn aadama baakiyan والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا إلهي نسائر وحيري إن آذنوا ما لنتي أدويدا دمنيسي ما لنتي أدويدا إيمانيسي وحي إذا كنا شيء أدو أويا دتكون أكتر هذا فرحسيهين عنو قبركو دلنا يو بقاق وقيل يا يسقو لكن دتكو فرحسيهين فاحفظ لنفسك نفت هذا انت نوشه إلاليو أمرك إلهي كو إلاليو دينت إلهي إلى السؤو إيمانك إلى السؤو سلان نمضى إلى السؤو أمرك إلهي حسيدين سمال انت دمان يسو أدا دويد وقتك تادقو فرحسن دتكو ناكتا دا يكو أويان دتكو والله وضع ننا دويد وحكتك يسقو فرحسن ننا ومستريح ننا ومستراح nin waa nin adduunyadii looga raaxeeyey oo daartii aakhirada raaxadii baa loo qaaday nina dhimashadiisa markuu dhinto dadkii baa ka raaxaysanaya hebel ma dhintay haa qaar baa odhanaya baguu dhintay kaasi fitnaawi buu ahaay baguu dhintay nina waa nin mustaraaxa adduunyadii baa looga raaxeeyo caalamu tacab baa laga qaaday caalamu raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamku u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waa dhiman adduunyada ma dhammaystirmayso low kaana liibni aadama waadiya min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan ina aadan haddii la siiyo tog dahab oo socda buu nebigu yidhi ku labaad buu jeclaan buu yidhi haddii ku labaad la siiyana ku saddexaad buu jeclaan buu yidhi ina aadan afkiisa wax kale ma buuxiyaane qabriga marka la geliya ciidda lagu guro unbuu dhargaa buu rasuulku yidhi adduunyada lagama dhargo ma dhargaysid maxaa yeele looguma talagelinba shahawaad waxay bini aadamku u baahan yahay adduunyada laguma dhammaystirin daar baa jirta lagu dhammaystira waxay naftu u baahan tahay hadda subaxdii bal u fiirso magaalada dhowtonka meelahan aad tirahdaan centerfield baan idhaa anaku wasta almadiina waddada hanweyga ee u socota magaalada bartamaheega ayaa subaxdii maaragtaane rasha war oo zaxmada haddaad tiraa dadka halkee tegaysaan waxay ku dhahayaan waan shaqo tegaynaa galabtiina waddada kale ayaa zaxmada oo cidhiidhiya haddaad tiraa halkee tegaysaan wuxuu ku leeyahay waa raaxo tegaya gurigaygii baan tegayaa reerkaygii iyo oradaydii baan u tegayaa meesha shaqaduna waa meel gooniya meesha raaxaduna waa meel gooniya
adduunyadani meeshii lagu raaxaysanayay ma aha halkan shaqaa loo yimiday meesha raaxada waa loo noqon doonaa إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا تصحوا لا تسقموا أبدا تنعموا لا تبأسوا أبدا تشبوا لا تهرموا أبدا أهل الجنة برسولك يري مركي الجنة قلان أفر شيء بالله بشارين يا وعلى رنا أهل الجنة ما أنت لقى بلا بواحد ليده النلل أدي مشد بلهين شباب نمو أن قبوا دم بلهين نعمد أن دبات دم بلهين عافمات أن حنون دم بلهين بالورنا يا أين الدنيا حديث النبي كشيكي ابن مسعود وريي يا أذنى أهل الجنة منزلا جنة دسك قليا كوجود درجير بالنبي مالك الشيكي حيوري وأنن كسر بحيا جنة بالنبي يقول جنة كسر بحيا غرغورة بك كسر بحيا الباب كي جنة إلهي بهر إيمانيا إلهي بأورنا يا عبدي أدون كيجيو أرض جنة قلوة تاس الباب كي جنة إيمانيا إني يسيب الله قد يا جنة إني بحسنتي مركز النقطة يا رب جنة تك قل يقول تري وين بحدا مالن كده ما هيست مركز سؤال أورنا يا ما بحدا أرض النقطة قل هذا أنا إيمانيا مر لبعض مر صدحات مركز أفراد بإلهي أورنا يا أرض جنة قل أو تك أو قل جنة الدنيا دي يتوبن كيد بالله ده كلي جالس الدنيا دي أي مسا توبن كيد وصاحد أرلده ويان أما واحد جنة يا لا الدنيا ما يلين ما يلين الدنيا ما حيالا مركاسو أورنا يا أتسخر بي إله ما يقول دال إسا أو تضحك بي مسواد يقول قصل صادق أبو بكر كيه مسكح دي سي كده هذا عين رنتاس الدنيا دي يتوبن كيد بالغوسية سعو إمام قرطبي كتابه تذكره وحو كشاقي نينكاسي مدحوينه marka dawlad loo magacaabo kormeer buu sameeyaa dalka oo dhan buu soo maraa gobolada tuulooyinka districtyada meel kasta soo maraa wasaaradaha ninkaasi wuxuu yiri halkan uu ka bilaabayaa jannadiisi halkan uu ka bilaabayaa ilaa dhinaca kale uu ku soo wareegayo meesha uu marna mar labaad isha ku qaban maaye safarka wuxuu ka qaadanayaa 1000 sanadood imisa sano 1000 sanadood فياتي وحو إيمانيا الباب كي جنة ويسسوتها جايا حور العين تسيبا كور إيمانيسا تنظر إليه وينظر إليها ابن عباس ويأجي وأجي أجمدو كلي هيا قادر يسيبوا دافرت السنة إمسا سنة دلك جوكتان النظر فقط تعانقه ويعانقها وكبو ديا ويكسو بوديسا ويسكو ديا والمعانقة قدر 40 سنة ابن عبد الله بن عباس معانقته كلية waxay saysanayaan 40 sanadood oo kale وصعنايا مخسيكي cuntada ay taalay buu fadhiisanaya 700 sano cuntada cunaya bas muddada u yar cuntada cuno 700 sano أين الدنيا maxay tahay adduunyadu حور العين توان كشاكين لهنا كله هواينكم وانا لا فديان بيانكم وانا لا دغيسانيا محاضرada حقوقنا waan sheegaynaa عجيب نعمداس إلهي dadka muuminiinta u diyaariyay يطوف عليه 10,000 خادم النبي يقول ninka jannada galaya dadka jannada gala ugu jagayara ugu faqiirsan ee ugu faqiir lama dhihi kare ugu jagayar waxa dushiisa dawaafaya buu nabigu yiri 10,000 oo khaadim baa dul dawaafaya khaadimka kala arki maayo khaadimkan sharaabka iyo cuntada uu sida ku kala masjido guriyaha jannada buu nabigu yiri sida guriyahan adduunyada ma ahine sidaas ay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yiri asxaabtu way yaabeen yaa rasuulaha guriyaha sidaan u galaynaa wuxuu yiri sida shimbiraha u duulaysan u galaysaan buu yiri cuntada cunaysaan biyaha cabaysaan sindhay iyo kaadimina noqon maayaan cuntadu waxa isku bedelaysaa daacadaas oo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku bedelayaa dhididkaas oo isaguna miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma haraadayaan ma bukoonayaan calal xuma ma jirto oo qabyaalad ma jirto qabyaalad halka ma socon ma jirayso ونزعنا ما في صدورهم من غل الباب الجنة مركي جوغان لما الشيبة ولا قد ظهيريا هدي جيركوغين جنة انتي قلين بالبدليا لابتو ذا وحي كجري غل اي حسد
iyo dabeecaddii xunayd iyo buqdigii iyo wixiina halkaasaa lagaga reebaya. laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama, wax kala maqli maayaan, salaama salaama bay maqlayaan. waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum nuzulan min ghafuur salaamun qawlan min rabbi raxiim. dhexdoodana waa salaam, malaa'igtuna way salaami, xagga salaamkana salaam baa ka imanaysa. salaantee ka imanaysa? salaamtaa waxay ka timidaa la odhanayaa min alxayi aladi laa yamuut ila alcabdi aladi laa yamuut. diinta iyo iimaanka islaamnimadu waxay bini aadanka siinaysaa sifo sifaadka ilaahay ka mid ah. alabad, sifat alabad buu yeelanaya qofka bini aadamku markuu jannada galo. min alxayi aladi laa yamuut waxaa la odhanayaa salaantani waxay ka timiday ilaahay noolahay aan dhimanayn, waxay u imatay addoonka ilaahay isaguna aan dhimanayn haddee toole. nicmadaasaa ilaahay noo diyaariyey. nicmaddaa waxaan ku helaynin waan haysanaa, iimaankaan ku helaynaa, islaamnimadaan ku helaynaa. haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nebiga ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat iljanna. raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye, laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar. naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweeneyda dhimata iyaduu ninkeygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi. rasuulku xadiis waxau ku yidhi dadka salaada tukada albaabbay jannada ku leeyihiin la yidhaa baabu salaa. dadka soonka laazima albaabbay ku leeyihiin baabu rayaan la yidhaa. dadka sadaqada bixiya albaabbay ku leeyihiin baabu sadaqa la yidhaa. dadka jihaadka u dadaala albaabbay ku leeyihiin baabuljihaad la yidhaa. abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi yaa rasuul allah, hooyaday aabbayba waan kugu fidayn oo kugu furanaye 8 albaabay jannadu leedahay, nin ka galayo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi. markaasuu nebigu uhi nacam wa arjuu an takuuna minhum, haa way jiraan rag 8 albaabee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal, kan ka soo gal, way jiraan. raggaa inaad ka mid tahay baan rajayn buu rasuulku yidhi abubakar ow. abubakar keliya ka gali maayo 8 albaabee, waxaa la galaysa gabadha saalixadda. ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa. hadday haweenaydu buu nebigu yidhi 5 waqtina tukato, bisha rabadaanna ay soonto, farjigeegana xumaanta ka dhowrsato, ninkeygana ay adeecdo, 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi. 8 albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi. hadday gabadha laga hela 4 camal, bisha rabadaan oy soonto, 5 waqti oo ilaaliso, xumaantoo ka dhowrsoonaato, iyo zawjkeega way adeecdo, 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanee la geli doontaa qiyaamaha. waa la weydiiyey nebiga, gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku, haweenka muuminaadka ayaa xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi. caaishaa weydiisay, wuxuu nebigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi. waxay tihi maxaan kaga fadli badannay? waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye. wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna. waxay kaga fadli bateen xuralcayntu, haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan, salaada ay tukanayaan, iyo raggooga ay adeecayaan. fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayni dhigtay. nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba. wuxuu nebigu yidhi hooyadaa, haddana hooyadaa, haddana hooyadaa, haddana aabbahaa buu rasuulku yidhi. dhegayso gabadhayda muslimaday, diinta islaamku hoos kuumay dhigin, xaqaagiina may qarine, bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday. kor sayidina cabdullaahi binu cumar buu nin u yimiday, lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan. cabdullaahi binu cumar buu u yimiday nin, markaasuu yidhi yaa ibnu cumar, hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay, intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday, waan dawaafsiiyey, carafa ayaan geeye, xaqeygii ma guday mise ma gudin? wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudday iska daaye, maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay, maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi. xaqiina waad leedihiin, xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee, adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday. dhaqan baad leedahay, diin baad leedahay,
islaam baa tahay mu'minad baa tahay waxaad ku dayataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raaliga kaga noqday waddadoodii maryam binta cimraan ku dayo aasiya bintu masaaxim ku dayo faaduma binta muxamed ku dayo khadiija bintu khuwaylad ku dayo dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yidhi afartaasina waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd halka beydka guriga ninkaa rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadba waa u dul qaadatay adduunyadana way ka saay qaadatay waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayna dhigtay raabica ayaa la weydiiye oo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacda nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaa la yidhi waxay tidhi gabadh xigmad lahaydoo afartaaba annaka unbaa dhalla bay tidhi subxaan allah caqligu waa cajiib caqliga allah inoo hagaajiyo boqoradana annaka unbaa dhalla imaamyadana annaka unbaa dhalla nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhalla bay tidhi allah ina fahamsiiyo khayrulkalaami maa qalla wadalla ilaahay diintaa buuna siiyey islaamnimada diintaa inaan adkaysanno oo nicmadda u aragno nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonayaa walaalayaal oo dalkanaan imanay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka bedelin ittaqi llaha xayumaa kunta buu nebigu yihi meeshaa doontaba joogoo ilaahay ka yaab badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa inakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nebigeennu istaagay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ina siiyey dadaal hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan iyakuna ay badbaadayaan usradoodii iyo dadkoogana ay badbaadin karayaan mu'minka dhabta ma bedilmay waxbuu bedilaa lama saameeyo waxbuu saameeyaa dhowr nin oo caraba ayaa ka tegay khilaafadii dowlatul amawiya ardul islaam bay ka tegeen indonesia malaysia u tegeen tijaara iyo business calaa manhaj alislaam bay ku tijaaraysanayeen akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii 8 kun buu ka diray cumar ka diray maaragtaanay madiina masar buu u diray 8 kun baa dalkii oo dhan badishay mu'minku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay iclaa kalimati illaah ixyaa addiin fi lcaalam nashr nicma mu'minku markuu ka dhiga hadafkiisa inuu islaamnimadan qaado caalamka gaadhsiiyo inuu nicmadan ummadda ugu yeedho inuu diintan caalamka uu meel walba u maro hadafkaa markuu muslimku hadaf ka dhigto uu u safro uu dhaqaalo u bixiyo u dhaxo u dhoofo ma bedilmaya isagaa wax bedilaya lama saamaynaya isagaa wax saamaynaya ta keliya aan ku badbaadayna waa maxay ee xifaadadeennu ay ku jirtaa waa inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqayna rag iyo dumar ummaddan wuxuu kaga tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam manhajka uu kaga tegay waa maxay 3 shay zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd cilmi iyo camal iyo dacwa 3daa zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd nin kastoo saxaabiya gabadh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim diintooda way yaqaaneen caamilan bidiinihim diintoodana way ku camal falayeen daaciyan ilaa diinihim diintoodana ummadda way ugu baaqayeen alcilmi walcamal waaldacwa 3daas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma tegin nebigu ummad maaragtaanay adduunya ku hamoonaysa kagama tegin caalamkee wuxuu kaga tegay ummad aakhiradu ay la weyn tahay oo diintu ay la weyn tahay oo iimaanku uu la weyn yahay oo islaamnimadu ay la weyn tahay cuqba banu naafic madiinu ka dhaqaaqay masar buu yimiday libiya ayuu yimiday muxiit alatlas maqrib intuu istaagay zamankan waaga zamanka dalkanaa joogno lama aqoonin faraskii intuu badda geliyey buu yidhi yaa rabbi low calimtu waraa hada albaxri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan laa ilaaha illa allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi alaan arjac ila almadiina haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina maxaan u noqonayaa lianna alarda intahat leanna dhulkii baa dhammaaday buu yidhi haddeetoole uu celiyey faraskii jazaa'ir buu markaa ku dhintay halkaasaa lagu aasay madiinuu ku barbaaray cukaasha radia allahu canhu ree madiina ayuuhaa waxau ku aasan yahay suudaan aba ayub alansaari ree madiina ayuuhaa istanbul buu ku aasan yahay abi waqaas ree madiina ayuuhaa siin buu ku aasan yahay cabdiraxmaan alkhafiqi ree dimashq buu ahaa faranse buu ku aasan yahay
bilaal reer makuha wuxuu ku aasan yahay dimashq kam min asaxaaba caalamka ku aasan kam muslimiina dalkan maanta ku aasan laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa labahan islahayn oo isku dhoweyn weeyaan saamaxa hoosta waxba aygu qabanina hadafkay u socdeen iyaku iyo hadafkan maanta u soconna iskuma dhowo walaalayaal lidaalika waa inaan niyaddeena bedelnaa dalka niyaddaan ku imanay waa inaan bedelnaa waa ilaa haddii kale khatar baan ku jirnaa niyaddeeni waan bedelaynaa maxaanu bedelaynaa inaan dalkan joogno laakiin aan diinta ilahay ka shaqayno oon ka bilowna shaqada diinta muslimiintii hor dalkan timid ime aaway dadka yimide dalkan ayna hum maanta inta soo galaysa maskiidka ku farxin ziyaaraadka bax jawladda bax raac jamaacadada dibadda u bax waad yaabi doontaa tastaqrib ayaa u soo baxaya innaka halkii nabiga taagan calayhi salaatu wasalaam man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina buu nebigu yuri falaysa minhum ninka muslimiinta dhibaatadooda ka walwalin ka murugoon naga mid maha buuhi annaka ama muslimiintaba ka mid maaha dhibaatada ugu weyne islaamka haysata waa maxay bucdu can iddiin dhibaatada ka weyn waa dhibaatadee ilaahay oo laga fogaaday dhibaatadee ka weyn allah ina fahamsiiyo dee niyadda ma bedelaa haa dhahada dee bal wixii la niyaddii waan bedelow gacanta taag mustaacidiin dhahada oday baa beri nagu yidhi wacdigiinaasi uu macaan yahe bixitaanka on maad ka reebtaanaa buu yidhi kollay meel hoo u baahan hadal wax ma ka taraa yaa saafir tajid ciwadan caman tufaariquhu wansab faina ladiida alcayshi fi nnasabi inii ra'aytu rukuuda almaa'i yufsiduhu in saala taaba wain lam yajri lam yatibi alusud lawlaa firaaqu lardi maftarasat wasahmu lawla lqawsi lam yusibi buuhi imaam shaafici libaaxu muxuu libaax ku noqday kayntiisuu libaax ku yahay muslimku wuxuu qiimo ku yeelanayaa markuu ka shaqeeya shaqada diinta hadday biyuhu fadhiistaan waxaan ogaaday buuhi imaam shaafici biyuhu inay xumaanayaan hadday socdaanna inay biyuhu daahir yihiin cidda kalena ay daahirinayaan ummaddan socodkay qiimo ku leedahay walaalayaal fa insha allah niyooda inaad socotaan ziyaarta dadka socda nebi maxamed baa socday calayhi salaatu wasalaam khayru man daba calaa wajhi alardi waa ina cabdillaahi weeyaan maa ka fadli badan tahay adigu wa qaaluu ma lihada arasuul yaakulu aطacaam wayamshi fi laswaaq lawlaa unzila ilayhi malak fayakuna macahu nadiira waa maxay kan suuqa wareegaya nebiga lagu yidhi u wareegay halkay joogaan buu dadka nebigu ugu tegay dadku waa laba weeyaan muqbiliin iyo mudbiriin dad khayrka jecel iyo dad khayrka aan jeclayn iyo maa badan 90% ma soo galeen masaajida dacwadda waa maxay dacwadda masaajidka laga jeedinayana waa dacwatu raaqibiin baa la yidhaha dacwadda dibadda la tegayna waa dacwatu hayr araaqibiin baa la yidhaha labadana waa loo baahan yahay barkadda biyaha haddii laga darsado biyo lagu shubi waayo maxaa dhacaya haddii dadka dacwadda loogu yeedhi waayo masaajidda inta soo galaysa way dhammaan way dhoofayaan mid baa dhiman mid baa noqon mid baa xanuunsan mid baa waalan masaajidka xidluu ka soo bixi marka waa in la helaa dad shaqadii dibadda qabto ummadda kusoo xidha culummadiiyo masaajidda marka jamacaadku wax kale lama socdaan wax jadiida ma wadaan mujtamacan iyo waxaa isku xidhayaan iyo culummada masaajidda faham walaal fa marka allah ina waafajiyo allahna inagu anfaco le jamaacaduna bari weyna la joogaanna soo ziyaarta usbuuc kadibna kanada inay u gudbaan baa laga yaabaa waana nii soo noqon doonaa dee wixii diyaara inay ile martidu xaq bay leedahay ma tahay samaa ya dee martida in la yar dhaweeyena xaq bay u leedahay maxaad u dhaweyn leedihin isku noqda in sha allahu tacala waan ila joognaa allahna khayrkana waafajiyo wa sala allahu calaa sayidina moxamed